magaalada Cadaado ee xarunta baarlamaanka maamulka Galmudug ayaa waxaa maanta imtixaan u fariistay ilaa 50 macallin oo wax ka dhiga iskuulada waxbarasho ee deegaanada maamulka Galmudug. Imtixaankan ayaa waxaa qaadaysa wasaaradda waxbarashada Soomaaliya kuwaas oo mustaqbalka la filayo inay noqdaan macallimiin u shaqeeya dawladda. Wasiirka waxbarashada maamulka Galmudug Burhaan Warsame Cigaal ayaa daha furay imtixaankan maanta. Waxaa sharaf weyn oo ah in halkan isugu nimaadno munaasabadatan gaaban oo lagu talagalay in imtixaan kooban loo qaado qayb ka mid ah macallimiinta wax ka dhiga iyo kuwa hadda ku soo biirayaba dawlad goboleedka Galmudug. Waxaa sanadkan la qorsheeyay in ilaa iyo dhowr boqol oo macallin oo budgetka Soomaaliya lagu daray oo mushaar laga siinayo lacagta canshuurta iyo lacagta dakhliga wadanka soo gala ee aan banaanka ka imaan in macallimiinta lacag laga siiyo ayaa la qorsheeyay. Marka qorsheynta la qorsheeyay wadanka waa federal waa states qayb ka mid ah oo dalka ka mid ah oo ama state ah waxa loo qorsheeyay konton macallin inay halkan ay ka soo baxaan oo ay wax ka dhigaan oo yaraan dhowr iskuul oo la rabo in dawladdu ay la wareegto. Waxa aad u yaraa tirada macallimiinta dumarka ah ee soo codsaday imtixaankan. Haddaba maxaa sabab u ah? Su'aashaas waxaan weydiiyay Rijaalo oo ka mid ahayd macallimiinta saaka u fariistay imtixaankan. Anaga aragti ahaanteen gabdhaha waxaan qabnaa haddii macallimiinta gabdhaha ay yaraadaan inaan gabdho badan la helayn. Waayo sida ogtiin gabadhu waxyaalaha marka daraasaad laga sameeyo gabadhu ay qaangaarto ay waxbarasho drop out ka noqoto waxa sabab u ah caqabado badan baa la soo darsaya. Caqabadahaas ay u sheegan karin macallinka ragga ah, laakiin sida la ogyahay haddii gabar macallimada meeshaas joogto baahiyaadkeeda qaaska way u sheegan kartaa. Qorshahan oo ay wado dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa uu yahay mid lagu horumarinayo waxbarashada dalka iyadoo la filayo in sanadaha soo socda ay dalka ka hirgasho waxbarasho tayo leh isla markaasna carruurtu ay si lacag la'aan ah wax uga bartaan iskuulada. Cabdi Xasan Abuwe, Warbaahinta Qaranka Soomaaliyeed, Cadaado.